nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainnahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weyddiiya su'aashii qabriga hadda la weyddiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weyddiiya haddaa su'aashii qabriga la weyddiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su'aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofkeennaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weyddiinayaan hadduu boqor yahay waa la weyddiin hadduu caalim yahay waa la weyddiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weyddiin hadduu faasiq yahay waa la weyddiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaannay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanaayey ee iimaanka qabay ilaahay baa يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إلهي تبارك وتعالى قفك مؤمنك إيمانك قبا saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal saddexdaas su'aalood baa qof kasta la weydiin doona marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqa ku muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jirhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaad wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay nooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min haada fakashafnaa canka ghidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan